وبدبادنا 4.5 بلشية هيلنا وبوق قبيل هوغان oo baha iyo biifbaaf la mariyo la inagu bahdilaya 4.5 bulshada hayelina Cabdi Shire waa suugaanyahan heesaa nin caan ku ah Soomaalida dhexdeeda oo qatar naftiisa u galiyay si uu u cambaareeyo argagixisada iyo musuqmaasuqa iyo qayladhaantan diray haday dalka wada gaartay digaaguba dawac waa dili karaa dunida maanta dabarka iska jara oo la dirira qoomka diinta ku qaraabta macabsade afmaal ah oo dhaliila al-shabaab Cabdi Shire Jaamac waxa uu nafsadiisa galiyay halis si uu uga qayla dhaamiyo rabshadaha ka dhacaya mid kamid ah dalalka ugu qatarta badan caalamka waxa la ii dhaafay fariin codeed mobilkayga laygu leeyahay Cabdi Shire hadaadan joojin waxa aad wadid adiga iyo walaalaha iyo kooxda qayladaan bahalaag baa idin soo raacayar jecel filimkan waxa uu daba socon doonaa Cabdi Shire oo ah suugaanyahan u dhaqdhaqaaqa nabadda kaas oo u socdaali doona Turkiga si uu ugu biiro xubno ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee sida weyn u dhaliila al-shabaab qof noolo ku dayaysa saas qoorta in la qabto midida lagu ximnay madaxeeda inta la dhigay inta qaarkeeda dambe la dhigay waa tan ugu xun adduunka cunugeydana saasay yeeleen waayihii murugada Soomaaliya ee tegay qaraxii ugu weynaa ee dhaca oo dad inta leeg ay ku dhintaan aad baan ula yaabay waa malaysan kari waayay ilaa iyo rajada mustaqbalka ee ifaya waa isku mashquulinaynaa waxa uu ayay wadanka waa ragaan weyn marka waa in loo howlgalaa la isku dayaa sidii iskuulada dib loogu celin lahaa waxaan daba socon doonaa Master Jaamac suugaanyahanka qoraaga iyo u dhaqdhaqaaqaha nabadda oo ku jira geedi socod uu ku fidinayo nabadda iyo deganaansho ka dhaca Soomaaliyada maanta maansayahan noqdo balse Soomaalida waxaan u sheegaa oo aan iraahdaa suugaantaygu soo qaxdo qaxootinimo ay weydiisatee Master Jaamac waa mid ka mid ah suugaanyahanka Soomaaliya ugu caansan konton isdeed jirkan waa nin caan ah waxaana ugu wacan suugaanta awoodda badan ee badanaa xambaarsan ujeedada ee uu curiyo 20 sano ee ugu dambeysay Soomaaliya waxaa soo maray khilaafyo badan oo kala duwan ilaa 2007 ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika oo kaashanaya ciidamada qaranka Soomaaliya waxa ay horumar weyn ka sameeyeen dib u qabsashada goobo ay haysteen al-shabaab hawshooda ah dib u unkida nabadda iyo amni ka hirgala dalka oo dhan waxa ay la macno tahay sidii maalin walba dadka Soomaaliyeed ee la midka ah Cabdi Shire in ay u istaagaan kana hortagaan dhibaatooyinka qabyaaladda iyo argagixisada iyo in ay codkooda u isticmaalaan horumarinta nabadda iyo deganaanshaha dal si weyn ugu baahan tiiraanya bixin ama bogsasho waxaa jira jiil Soomaaliyeed oo noloshooda garanaya oo keli ah fawdada qabyaaladda iyo argagixisada ayaa dalka burburiyay sababo la xiriira dhibaatooyinkan taagan waxa soo baxay dad la mid ah Cabdi Shire kuwaas oo diidan in ay isku dhiibaan qalalaasaha waxayna codkooda u isticmaaleen hub ay ku horumariyaan nabadda iyo dib u heshiisiinta waxa qofka Soomaaliga ah inta badan waa bulsho jecel inay micnaha hadlaan oo halkay wax ka aqrin lahaayeen marka waxa dhici karaysa buug dhan hadaad u dhiibto waxay ka jecel yihiin in laba eray ama dhowr tuduc loogu soo koobo buuggaas dhan ay ka jecel yihiin intaas ay qaban hayaan u gudbinayaan marka suugaantu door weyn ayay ku leedahay dhaqanka iyo hidaha gudaha Muqdisho Master Jaamac waa lagu soo xoomayaa maadaama uu yahay nin caan ah dadka caadiga ah si wanaagsan ayay u garanayaan wajigiisa mid ka mid ah taageerayaasha ugu badan ee Cabdi Shire waa dhalinyarada waana arrin asaga muhiim u ah marka ay timaado in uu ka hor istaago dhalinyarada in ay ku dhacaan gacmaha kooxaha sida al-shabaab yarka sheegna halkan aan ku kulanaa jira adeer magacaaga maxamed haye maxaa qabataa adigu kabaha casaysaa maxaa iskuul maxaa waadi weys
waa isku mashquulinaynaa waxaan ayay waddanka waa raggaan wey marka waa in loo howlgalaa la isku dayaa sidii iskuullada dib loogu celin lahaa aad iyo adar adiguna magaca ya xabiib ay maxaa dhaca halkan maanta maxaa ka qabanaysa jidkaan maraysa maxaa u timid meeshaan markaan la kulmo waxaan u sheegaa in aysan fikirka ururada xagjirka aysan u dhaganuglaan waxaan inta badan siyaabo kala duwan shirar workshopyo ama seminaaro ama ayaan u qabanaa waxaan sameeyaa ama aniga iyo ragga ila midka ah oo kooxdayda minaha ka tirsan oo aan isku fakirnahay warbaahinta ayaan inta badan aanu kala hadalnaa oo u sheegnaa dhibka ay leedahay xagjirnimada aniga oo minaha isticmaalaya maadaama aan garanayo dhalinyarado anoo aabba aniga oo muddo la shaqeynaya ururada bulshada garan kara qaabka ay minaha wax u fahmaan ayaan isku dayaa suugaantayda iyo kuwa abwaanada Soomaaliyeed oo aniga minaha ila midka ama igaba minaha sharay suugaanta anagoo la kaashanaya ayaan suugaan ahaan wax ugu sheegnaa marka qaabka ayaan iyaga u gudbinaa fariinta mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee al-shabaab dadaalka ku bixiyeen ayaa ah in dhalinyarada aysan helin waxbarasho Soomaalidu si wanaagsan ayay u garanayaan in argagixisada ay wax walba u sameynayaan si ay arrinkan ugu guuleystaan sidii lagu arkay weerarkii Hotel Shamu 3 December 2009 xaflad qalinjibin jaamacadeed ayaa ka dhacaysay hoolka shirka wuxuu la ciirciirayay arday waalidiin iyo siyaasiyiin waxaa lagu waday in ay noqoto maalin farxadeed balse waxa ay ku dhammaatay murugo qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa hoolka isku qarxiyay wuxuuna galaaftay nolosha 30 qof iyadoo ay goobta meydadka daadsan yihiin ayay al-shabaab sheegteen mas'uuliyadda qaraxa wuxuu ahaa mid ka mid ah weeraradii dhiigga badan ku daatay ee ka dhacay dalka cabdi jaamac goobta ma uusan joogin balse wax walba waa uu xasuustaa Shamu ayaan daawaday clip ama muuqaal TV-ga anuu London baan ku sugnaa marka qaraxa maalinta uu dhacayo anoo shaqo ka imid baan guriga markaan soo galay baan TV-ga saa u jaleecay waxaan arkay wax aan malaysan waayay in ay ka dhici karaan minaha dhul Soomaaliyeed ama dunida aan ku nool waxaan u qaatay markii hore filmadan Mareykanku ay sameeyeen Hollywoodka ilan waaba qarax ka dhacay waa qaraxii ugu weynaa ee dhaca oo dad inta leeg ay ku dhintaan aad baan ula yaabay waa malaysan kari waayay 6 sano ayaa ka soo wareegtay Masar Jaamacna waa uu soo booqdaa goobta si uu u xasuusto wixii dhacay maalinta iyada waxay ahayd maalin farxada maalin waalidiintu iyo ardaduba ay soo xirteen dhar la xirto waxa ugu qurxoon maxay yeelay waa dhaqaatiir Soomaaliyeed ayaa qalin jabisay doonayay inay minaha mustaqbalkooda ay ummadda wax u qabtaan waalidiintii soo korisanaya wax tiraan waxaa la ii sheegay in hooyo ka mid ah carruurta mar waraysi laga qaadahayay ay tiri waxaan ku soo koriyey canjeero aan ta subaxi dubaan bannaanka ka iibiyo inta waxa ka soo iga soo galaan wiilkaygii dhintay Allah u naxariistee ayaan jaamacadda uga saaray marka waad garan karaysaa murugada iyo dhibka ay leedahay ilmo yaro sida lagu soo koriyay nolosha islaha ina waalidkuna lahaa ka saaro nolosha silaca oo dhibka badan ay ku jirtay isaguna mustaqbal ha yeesho in marun amar Ilaahay ku dhacdo hadii naf walba saacaday dhimanayso waa iska qoran tahay waxba lagama qaadi karo taa awood Rabbi bay ahayd balse waxay maalinta quruxda badan oo naxdinta ku dhamaatay dhimashada iyo burburkaas waxa ay saameyn ku reebeen Cabdi Shire isagoo daawanaya dhacdadaas foosha xun ayaa erayo suugaaneed ku
ku soo dhaceen kuwaas oo ka caawiyey dad badan oo Soomaaliyeed in ay ka bogsadaan murugada weerarkaas oo ay goobjoog u ahaayeen. waxaan maqlayay marka qaraxii lala beegsada ardada ayaan maqlahay waa ka tagay qol computer yaallo ayaan galay computerkii baan ku bilaabay inaan midnaha iska qoro qalqal nagu beer qaraxii lala beegsaday ardadii qalin jabinaysay qasaarahana gaaray waa midaan qiilla loo ahayn. sidaa ayay ahayd heestu. waxaan xustaa ku casumay hadda sanadka 2013 kooxda Qeeladhaan dhowr jeer baan geeyey fanaanin ka tirsan magaalada Xamar. aqlaga waa diidahay ciidamadii baan xataa dhex geynay oo fanaanintii aan u geeyey ilaa ciidamadii loogu tababaray dadka cadowga xabad ku ridaan ay dhulka ku wada daateen wada ooyeen suugaanta iyo dareenka markaan qalbigooda xantateynay. heesta Qeeladhaan waxa ay noqotay mid caan ah. waxa ay ka caawisay dad badan oo Soomaaliyeed in ay iskala qabsadaan falkan foosha xun. waxa ay sidoo kale bilow u noqotay mihnada suugaaneed ee Cabdi Shire. 48 saac gudaheedna heestii baan ku soo saarnay. marka Qeeladhaan sidaa ayay ku timid. wixii intaa ka dambeeyana markaanu soo saaray ayaa 24 saac dabadeed waxaa la ii soo diray taxio haddii ilaahay ku idmaayo fariimo adigu kumaankum aqligaagu diidayo ummadda Soomaaliyeed ay igu dhiirigelinayaan iguna boorinayaan wixii aan sameeyay inay wax fiican ahaayeen. markii magaciisaba uu caan noqday waxa uu soo jiitay dareen aan loo baahnayn maba dheerayn markii uu helay hanjabaad dil ah oo loo soo diray. waxaa la ii soo qoray waxaa la ii dhaafay fariin codeed mobilkayga laygu leeyahay Cabdi Shire haddaadan joojin waxa aad wadid adiga iyo walaalaha iyo kooxda Qeeladhaan halaag baa idin soo raacayaal jecel dhan. sidaa darteed voicemail baa laygu dhaafay codka waxay ahayd March 10keedii sanadka 2010. Police-kan u geeyay waxaan ku yiri codkan baa lay dhaafay waa lagu dilayaa baa leeyahay. adigu statement qoraal baa laga qoray kadibna waxaan markaan booliiska ka soo dhamaystay baa waxaan ku fakaray ninka kan iyo tiimka kan ii dhaafay fariinta inaan la dagaalo iska dhiciyo. marka wixii ka dambeeyay Cabdi Shire Jaamac dib ma uusan u laaban. waxa uu sii waday kaalintiisii uu ku cambaareynayay al-shabaab iyo qabyaaladda isagoo u isticmaalaya suugaantiisa iyo qoraalkiisa hab uu ku gudbinayo fariintiisa ku wajahan nabadda iyo midnimada. in isbedel weyn uu jiro dadkii inay baraarugeen baan haddaan dareemayaa. aniga Xamar iyo ama gaar ahaan wadanka goboladiisa kala duwan ayaan socdaal ku tagay dhowrkii sano ugu dambeeyay oo barnaamij la yiraahdo socdaalka nabadda oo runtii xilliga iyo waqtiga ku haboon aan ka hadli doono ayaan ku tagay degmooyin iyo gobollo ka duwan. waxaan soo arkay dadkii oo caaboon nabad dadkii oo doonaya inay dalka midnaha ay dhistaan. sanadkii 2014 wuxuu helay fursad naadir ah si uu uga qayb galo shir ka dhacay Turkiga oo ay isugu imaanayaan qaar ka mid ah dadka loogu xushmada badan yahay ee aadka u dhaliila al-shabaab. waxaana shirkaas soo qaban qaabiyay dhaqdhaqaaqa ka dhanka ah qabyaaladda urur ay dhisteen dhalinyaro qurba joog Soomaaliyeed ah oo ujeedkoodu yahay dhiirigelinta doodaha lagu cambaareynayo qabyaaladda iyo argagixisada. dhibaatada Soomaaliya jirta ay midnaha dhibaatadu ay dhamaato ay ka baxaan. waxaan ka warhayaa inay imaan doonaan hablo iyo rag daba inta isugu jira oo aan leeyahay labeentii Soomaaliya culumaadiin ka kala imaanaya dalka gudihiisa iyo dibadiisiiba.
waxaan aaminsanahay in Soomaaliya dhibkeedu dhammaanayo marka shirka ATM ay Istanbul ka qabanayso aniguna aan ka qayb galahayo runtii aad baan ugu rajo weynaa wufuudda waxa ay yimaadeen shirka Turkiga qaar ka mid ah magacyada ugu waaweyn bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa jooga waxaa sidoo kale goobta ku sugan culummo saameyn leh iyo hogaamiyaasha ururada diinta islaamka ee bariga Afrika muddo 4 maalin ah xubnaha dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaaladda iyo martidoodaba waxa ay ka shaqeynayeen qaar ka mid ah carqaladaha ugu waaweyn ee ay dadka Soomaaliyeed maanta wajahayaan in badan oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka si wanaagsan ayay u garanayaan murugada shaqsi ee ay qabyaaladda iyo al-shabaab ku sababeen ma jiro qof kaga ogaal badan Suldaano Axmed Maxamed oo aragtay dilka wiilkeeda xilli uu ku sugnaa gurigooda saasa dhibaatadaas weyn ay nagu reebatay ma ilaabo aniga hadda wili urku taalka ma ilaabo dadka qof noolo ku dayaysa saas qoorta in la qabto midida lagu ximnay madaxeeda inta la dhigay inta qaarkeeda dambe la dhigay waa tan ugu xun adduunka cunugaygana saas ay yeeleen aniga aan dhalay haddaan soo xasuusto aniga dhan maskaxda waxay dhijita alla amaad shoo qaada waa iska coodi bileystaa markaasaan 2 ragca iska dukada ilaahay iska aamina waqtigiisa dhamaaday waxaan ku xisaabtama haddeen waqtigiisa oo na gelin inaan la taaba lahayn amba leema taaban waqtigayga wax ka dhima way waxaan aniga teleefanayga waca loo lambaraa layga waca ilaahay muxuu dilaa marka adinka idishiina ilaahan wax kale ma ilaaha shirka waxa uu siiyey Cabdi Shire fursad uu ku baadi goobayo dadka gabya ee ku maskaxda ah mid ka mid ah waa Sheekh Maxamed Idris oo ah hogaamiye diimeed saameyn leh kaas oo dacwadda ku fidiya caalamka gaar ahaan qurba joogta Soomaaliyeed marka bal wax ma nooga sheegi kartaa ma iga sheegi kartaa maasooyinka aad isleedahay waa kugu jiraan maxay hadalka waxaan ka helayaa hogaamiye lirshu aan soo geyn marka adiguna soogtaan u maleenayo anigu in muddo isma ogeyn 50 sano dabadeed baa ogaad inaan wax oran karo aniga laftigaygu ilaa hadda iskuma ogi weli mana isku tirin karo laakiin kolal baan sida laga yaabo inaad facebookyada iyo qoraaladeeda aad ku aragtay marmar baan jeclahay iskaga sidii waad ahayd baan jeclaan lahaa iskaga kaftamo hadda wax ka xusuusan kartaa ma xafido laakiin مثلا waayahan waxaa jiray niman weerar qaado waxyigii la soo diray niman quraankii iyo waxyigii sunnada moogtaa waxyigii la soo diray rasuulkii wacnaa iyo waliyadii saxaabada Allahumma salli wa sallam alayhi waxyigii la soo diray rasuulkii wacnaa iyo waliyadii saxaabada warjeef ugu dhaqaaqo waxba aanu reebay dad diintii laga qaban kari laay inay weeraraan waaye waaxidkan ku dhaartay waa niman weerarsan oo weydaartay taladii waa kuwa wadkood galay marka ducaan ku soo gabagabeeyo waxaan ri weynow allahayow waanada quraanka iyo wacdigii sunnada iyo wadadii saxaabada nagu waari waliga aamin Columbus baan ku qoray aamin baan u dhameysiyay October 23 kadib 4 maalin oo ay wufuudda shirka wada hadlayeen waxa ay qoreen warmutiyeedka shirka fariin adag oo lagu cambaareynayo falalka al-shabaab qabyaaladda iyo kuwa ku lug leh falalka ka dhanka ah nabadda iyo deganaanshaha Soomaaliya si dhalinyarada Soomaaliyeed looga badbaadiyo fikradaha guracan ee xagjirnimada ah ee ku salaysan faham darrada diinta islaamka isla markaasna khatarteeda looga nabadgeliyo Soomaalida iyo bulshada caalamkaba waxaa shirku soo saaray baaq ku saabsan nabadayn dib u heshiisiin iyo wacyigelin waana qodobada soo socda kow shirku wuxuu ku baaqayaa in la joojiyo dhammaan colaadaha iyo dagaalada ka jira dalka lagana fogaado xasaasiyadka qabyaaladda
shirku wuxuu caddaynayaa in fahamka guracan ee al-shabaab aanu sal ku lahayn diinta islaamka, in wax laga qabto duruufaha nololeed ee ku xeeran dhalinyarada ka soo noqda fikirka xagjirnimada, bulshaduna ay dib u aqbasho loona abuuro fursado iyo rajo. shirku wuxuu ugu baaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu khaldo fikirkaas in ay waantoobaan kana soo noqdaan. shirku wuxuu isla gartay in mar walba la helo nidaam ku dhisan dawlad wanaag, hoggaan suuban iyo cadaalad ayna xal u tahay dhibaatooyinka murugsan ee ragaadiyay Soomaalida sida xagjirnimada iyo amni darrada. shirku wuxuu ku adkeynayaa ummadda Soomaaliyeed in qabyaaladdu ay tahay xaaraan, loogana bixi karo diinta islaamka oo si dhab ah loogu dhaqmo looguna walaaloobo qabyaaladda. barakallahu fiikum, jazakumullahu khayr. shirkii Istanbul ka dhacay oo ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada kacdoonka la dagaalanka qabyaaladdu runtii saameyn weyn ayuu ugu yeeshay. sidaan horeba u yiri waxa weeye anigiiba minaha wax badan kororsaday, marka waxaan isleeyahay saameynta aniga uu igu yeeshay oo dhan walba leh oo ah jacayl aan u qaaday muxuu ahaa bulshada Soomaaliyeed, jacayl aan u qaaday ina dhalinyaradii la dagaalanka qabyaaladda iyo rajo cusub oo ii muuqatay oo aan awal walaac waxaan qabay ah in dhibaatadan haddana rubac qarni kale ay sii socon karto. balse shirka markuu dhacay dabadeed waxaan dareemay in la soo yareyn karo dhibaatadan Soomaaliya haddii waqti iyo dhaqaale intaba la geliyo ururada caynkaana indhaha ayaan aamsana. gudaha Soomaaliya nolosha si caadi ah ayay ku soo laabatay. dalka waxa uu bilaabay in uu isbedelo arko. maalin kasta waxa ay la imaanaysaa rajo cusub, iyadoo dadka ay noloshooda caadiga ah wataan ayay haddana dareemayaan isbeddelka weyn ee nabadda iyo amniga. sababo la xiriira isgaashaan buursiga Midowga Afrika iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, dalka waxa uu bilaabay in uu u weecdo dhinaca deganaansho buuxa. fariinta aan u diraayo dhalinyarada da'da yar ee Soomaalida waxa weeye mustaqbalka dalka gacantiinu ku jira, idinka weeye ubixi barito micnaha halkii aniga layga oran jiray waxaan leenahay ubixi barito idinka ayaa ah. waxaan marka idin leeyahay dalka dib u dhiskiisa ee horumarkiisa inaad ka qayb qaadataan waa muhiim weeye. balse si loo ilaaliyo nabaddan waxa ay u baahan tahay shaqo maalin walba ay sameeyaan dadka la midka ah Cabdi Shire Jaamac, dadka adeegsada xirfadahooda sida suugaanta in ay la dagaalamaan xagjirnimada diimeed iyo rabshadaha. Soomaalidu dadaasho, aqoonteedu durugto, dilkii uu dhammaado, cudurradii la dabar jaraan doorbin dheer ku eegtaa. waxaan rajaynayaa in sanooyinka soo socda ereyada aan ku cabirayo sida aan u jeclahay Soomaaliya inay noqoto in Ilaahay na gaarsiiyo, adinkuna soo duceeyo qof walba Soomaaliyu qaybaha ka qaato hana loo howlgalan leeyahay in riyada Ilaahay noo rumeeyo.